mursal Ismaaciil Cumar oo loo yaqaano mursal Xayd ahna murashax u taagan golaha deegaanka ee Gabiley ayaa ka hadlay saamiga dhalinyarada ee deegaanada Somaliland wariyahayaga Muuse Xuseen Xasan ayaa warkan soo diray mursal Ismaaciil Cumar oo loo garan og yahay mursal Xayd oo la hadlayay telefishinka Som News TV isla markaana murashax u taagan doorashada golaha deegaanka ee la filayo inay qabsoonto aakhirka sanadkan maanta ka hadlayay waxa uu soo dhaweeyay heshiiska saddexda xisbi Somaliland ay ku heshiiyeen qabsoomida doorashada wakiilada iyo deegaanka geesta kale waxa uu u jeediyay dhalinyarada telefishinada ka hadlaya la taagan zaami qaybsiga ku saleysan beelaha inay Somaliland ka gudubtay waa sida uu hadalka u dhigay waqtiga ay beelaha wax ku qaybsan jirtay hadda se one man one vote qof iyo hal cod ay Somaliland u gudubtay geesta kale waxa uu ka hadlay isbedelada uu kala kulmay gobolka Gabiley iyo degmooyinka gobolka qaar kamid ah oo hoos u dhac ku yimid isagoo ugu baaqay xukuumadda Somaliland inay si siman ugu cadaalad samayso gobolada iyo degmooyinka dalka waxa waxaan ku suganahay gobolka Gabiley anigoo soo indheynayay xaaladda guud ee gobolka ku sugan yahay waxaan jecelahay inaan halkan fursad ka faa'iideysto aan kaga hadlo arintii maanta lagu heshiiyay ee doorashooyinka golaha deegaanka iyo baarlamaanka maadaama aan haynin xildhibaana oo u sharaxan odayaasha deegaanka gobolka Gabiley waxaan jecelahay inaan soo bogaadiyo heshiiska laga gaaray doorashooyinkii golaha deegaanka oo soo dhaweynaya waxaan ku baaqayaa in si inta dhimanna si fiican loo dhameystiro oo doorashada wixii ka hadhayna si degdeg loo dhameeyo mid kale waxa soo jeedin lahaa maxay heeday dadka meelaha ka hadlaya ee saami qaybsi iyo ku mashquulsan waxaan leeyahay maxay heeday waa laga baxay iligi reeraha iyo saami laga hadlayay waxa weeyaan doorashada ka qayb gala oo diyaar garooba dhowr jeer bay doorashadu dib nooga dhacday maanta alxamdulillah doorashadii baynu diyaar u nahay wax walba waa diyaar sidii doorashada loo gali lahaa waa in lagu dadaalaa oo laga qayb qaataa waa in aan lagu mashquulin oo aan awood la saarin saami baa naga maqanaya waxyaabaha aynkaasa runtii waxaan u arkaa xilligan in laga hadlo saami qaybsi iyo waxyaabahaasi oo lagu mashquulo runtii wax meesha wanaagsan oo loo baahan yahay maaha maanta waxa weeyaan doorashadu dhowr jeer bay dib nooga dhacday waxa weeyaan doorashadii inaynu qabsano mooyaane inaynu maanta wax kale ka hadalno maanta maaha dhalinyartana waxaan u soo jeedinayaa war hankiina ka faa'iideysto oo saami qaybsi waxaan wax diintana maahe sidaad wadankiina wax ugu qaban lahaydeen doorashada u galaydeen caqabada ku ah doorashada waxa weeyaan waa odayaal koofiyad baclayaala iyo dhalinyaro la maran habaabiyay oo lagu soo maskaxda laga soo galiyay waxba ay ka maqan iyo saamiya ay ka maqan oo siday saxda ku tahay waxa weeyaan gobol walba inuu tartamo oo tartan ku galo maaha in koota iyo reerebel koota loogu xidhay waxa lagu mashquulo maaha gobol walba inuu sida saxda ah doorashada galaa deetana tartanka wixii uga soo baxa uu galaa aad baan soo dhaweynayaa wadahadalo loo baahnaa bay ahayd waqtigeegiina way taagneyd in la sii dardargeliyo oo halka laga sii wadana waa jeclaan lahaa wadahadalaasi waxay noqon doonaan kuwa midho dhala haddii labada dhinacba ay ka noqdaan cadaalad oo dad waxaan dhab ka tahay hadday noqdaan midho dhal buu noqon doonaa wadahadalaasina way wanaagsan yihiin aan wadahadalna waxa weeyaan aan heshiino oo wixii yaalay aan ku kala baxno Somalilandna maanta waxa weeyaan ma aha inay la heshiinayso ma aha laakiin waxa weeyaan inay wixii xaqeegii ay sheeganayso oo lagu kala baxayo ayaan u aaminsanahay marka waan soo dhaweynayaa wadahadaladaasi wixii ka qabiyaana in aan doonayana ka hadlo waayo dhankaas ay jiitin ka tahay dhowr jeerna doorasho dib u dhacday waxaan oran lahaa qolada Soomaaliya ay soo diyaar garoobaan oo marka hore waa diyaar u soo noqdaan way dhab ka noqotay oo ay dhameeyaan wixii xagooga soo jeedina gobolka Gabiley waan soo maray maalmahan gobolka Gabiley baan dheedeynayay waxyaabo badan waa la qabtay waxyaabo badan way ka dhimayeen warso gobolka Gabiley wax qabad badan uu sameeyay laakiin waxa weeyaan xooga saaran sidoo gobolkan uu gobol ku noqon lahaa inay ka hadlaan baa muhiima odayaashana waxaan soo jeedin lahaa gobolka inay ku mashquulaan maaha barasaab baa jooga iyo taliye qaybeed baa jooga laakiin xuquuqdii gobolkan uu lahaa inuu helo oo ay ku doodaan ayaa muhiima ma aha in maxay ahayd ku mashquulaan gobol baa tihiin oo gobol waraabowtaaga oo runtii wax la wax macna sameynaya aanu jirin waayo gobolka Gabiley gobol dhaqaale horumar haddii waxbarashada tahay haddii tahay dhinaca ganacsiga gobol ku wanaagsan weeyaan oo shuruudihii oo dhan buuxiyay marka waxaan reer Gabiley soo jeedin lahaa inay xooga saaraan oo ay dawladda kala xisaabtamaan sidii gobol loogu magacaabi lahaa haddii kale waxaan leeyahay iska daayo gobolkan oo degmadiini wax ku qaata والله
arabsi ahaan haa marka loo eego degmada gobolka Gabiley marka loo eego budget badan bay ku leedahay oo mashruucan GBL-ga dawladda hoose wali arabsi wax laga qabtay ma jiro hal wadaynu haynaayo wadada yara oo sanad hore la siiyay marka waxyaabo badan buu u baahan yahay maxay ahayd inay xaqeeyga ka hesho gobolka oo ay kabkeega hesho oo si cadaalada loo qaybiyo wax qabadka gobolka oo dhan way wajaala way qaadataa kala bayro ugu yar baa qaata arabsiyo degmada labaad ee ugu weyn gobolka xaqeeygiin la siiyo ayaan soo jeedso kuwaas ayaa ku doodi kara oo marka golaha deegaanka la fadhiisto ee budget kala dejinaya miisaaniyada kuwa ka hadlaa waa kuwa degmada ka soo jeeda kuwaas hagrada baan u aaminsanahay oo u soo dhicin waaya xaqeeygi si kaarba gudaha waxa soo jeedin lahaa inuu degmada arabsiyo wixii ay xaq u lahayd inuu maxay ahaydeen siiyo oo wixii ay degmo ku noqonaysa arabsiyo inay hesho oo haday tahay xagga gobolka iyo haday tahay xagga degmadaba in wixii xaqeeygi la siiyo inuu ka shaqeeyo wallahi wax kale oo qaban kartaa ma jiro haday u keen weeday gaari maxay ahaydeen degmada oo gaarigii degmada ama gaarigii ambulance ka hay oo baxnaa dhakhtarka arabsiyo ama MCH inta haday u qaban weeday dawladdu ma aaminsan wax kale oo ay u qabanaysa inay jiraan wallahi waan taawan ku eedeynaya maxay ahaydeen dawladda dhexe wasaaradda caafimaadka inay dhakhtarkaasi ay dadka reer arabsiyo haday tahay ganacsatada oo ninka ganacsadaha xaji baxsan oo bixiyay ay dhistay inay yadnayntii ku soo hagaagtay ka dawlad ahaan maadaama ay dhakhtarkiyadu dhis weeday inay qalabeyso oo ay wixii qalaba iyo wixii horumar ay bixisabayd taawaan ku dhaleecaynaya ka maamul ahaan arabsi ahaana waxaan ku dhaleecaynaya inay marka hore qorshe keeni waayeen waxay marka hore intaan la dhisin baa qorshaha ka soo saxeexan baa dawladda inay iyadu fangaranayso wixii qarash ku baxaya wixii shaqaale ku baxaya iyo wixii qalabayna inay marka waxaan jecelahay inaan u mahadnaqo hablaha walaalaha arabsiyo runtii oo mar walba ka shaqeeya degmada arabsiyo oona ah ururka kaliya ee arabsiyo haday tahay ka shaqeeya arrimaha bulshada oo dhakhtarkana qaybta ugu weyn iyo hindisiisa ba lahaa waan mahadnaqaya iyo cidii kale ee ka qayb qaadatay waan mahadnaqaya wasaaradda beeraha iyo madaxweynahaba fariimaha halkan uga diraya wasaaradda beeraha waxaan u dirayaa inay ka gaabsatay wax ka qabashada degmada arabsiyo iyadoo oo marka horeba aan faragelin wax qabasho aan ku lahayn deegaanka ayaa haddana markay dhibaato timid halkay wax qaban lahayd aanay dhinaceegii aan waxba ka qaban wasaaradda beeraha waxaan ku eedeynayaa inay wax ka qaban weyday baahiyaha ka jira beeraha arabsiyo waxay ka mid yihiin beeraha ugu muhiimsan ee gobolka ay uga soo galaan dhaqaalaha iyo wax soo saarka marka Ethiopia laga imaado meesha kaliya khudaartu ay ka imaadaan waa arabsiyo imika markii Ethiopia ay xadkeega xidhay halkii lagu baxsaday waxay ahayd arabsiyo ahayd dawladdu markaa wasaaradda beeraha waxay inay wax ka qabatay maadaama aanay wax ka qaban de waxaan islahayn dhibaatada ay xaasimaanta keenay waxbay ka qaban ma islahayn oo de wax xaalad guud baan islahayn marka tiina waxba kamay qaban ay xibeero badan ay waxyeelo u geystay oo dhibaateeyay oo maanta uu qalajiyay waan ku dhaleecaynaya taana inay wax ka qaban weydo gurmad degdeg ah u soo saari weyday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mid baan ayaan soo jeedin lahaa madaxweyne waxaad ku ballan qaaday inaad beeraleyda aad maxay ahayd taageerayso oo aad ka taageerayso dhinaca wax soo saarka beeraha oo aad ku dhawaaqday inay Soomaaliland ay doonayso inay wax isku filnaansho xagga beeraha ay ka gaadho marka arabsiyana waxay ahayd meesha kaliya ee wadanka isha wax soo saarka ahayd sida aad ugu baaqday wixii aad ku baaqday kaama hayno oo beerihii waxa la waxaad u qabatay oo haday tahay inaad qalabka ka caawiso iyo haday tahay inaad ceelasha u qado kaama hayno madaxweyne marka madaxweyne aan ku leenahay qodobkii aad ku dhawaaqday ahayd in beeraleyda la dhiiri geliyo madaxweyne ka dhabe codkaygii aad naga heshay degmahan waxaan ka doonaynaa inaad wax qabad noogu badasho degmada kulmiye hore waxba mu qaban oo degmada gobolka waxba kama qaban iyadoo codka ugu badan ay siiyeen reer Gabiley kulmiyahan labaad ee imka jooga oo garwadeenka iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa la wax qabad oo gobolka kama hayno wax qabadkii oo dhan waxa loo wareejiyay bariga saasoo tahay barigu wadana waxay leeyihiin galbeedka wax loo qabtay waxaan anagu aaminsanahay oo leenahay ka arabsi ahaan iyo ka Gabiley ahaan in wax qabad muuqda loo qabto oo codkaygu wixii aan codka ugu siinay inaad wax qabad loogu bedesho
والله واحد أرسل وسارة عياروه كيف يجوا ويفير جرودي وقبلادoo dhan meel ay ka wado shaqadeedii oo ay ciyaarihii dhiiri gelinayso ciyaarihii gobolada ay qabanaysaa ma jirto oo aynaan garoon balahayn oo ciyaaraha noo dambayso laakiin aan garoonkii yarana ay ka miisan waxaan u soo jeedinaa heer gobol iyo heer dawladda dhaxba in maxay ahayd arabsi xaqiiqi hesho oo dhalinyarada la dhiiri geliyo oo lagu dhiiri geliyo dhinaca ciyaaraha oo xagga ciyaaraha laga dhiiri geliyo oo la siiyo wixii ay kaga mashquul lahaayeen tahriibka iyo Muuse Xuseen Xasan Som News TV gobolka Gabiley adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida